dagaal u dhaxeeya laba maleeshiya beeleed oo diris ah ayaa saakay dib ugu qarxay degmada Wabxo ee gobolka Galgaduud. Warar aan helnay ayaa waxay sheegayaan in dagaalkaasi oo shalayta subaxdii hore ka bilowday deegaanka Wabxo ee gobolka Galgaduud oo u dhaxeeya laba maleeshiya beeleed oo kala dega Wabxo iyo Guriceel oo u dhaxeeya dagaalkaasi. Dagaalka ayaa sidoo kale wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan inay ku geeriyoodeen ilaa 5 qof shalayta markii uu qarxay. Saakaroortii hore ayay ahayd markii dib ugu qarxay dagaalka halkaasi iyadoona ilaa hadda maamulka uu hogaamiyo Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor wax war aysan ka soo saarin. Dagaalkani ayaana ahayn kii ugu horeeyay oo ka dhacay degmada Wabxo ee gobolka Galgaduud. inkastoo madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor si gaar ah loogu eedeynayo inuu ka gaabinayo wax ka qabashada dagaal beeleedyada soo noqday ee ka dhacaya deegaanada uu majaraha u hayay Galmudug. Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo sidoo kale mas'uuliyiinta kale ee maamul goboleedyada dalka ayaa dhamaantoodba waxay ka gaabinayaan dagaal beeleedyada soo noqday inay xal waara ka keenaan inkastoo qaar badan oo kamid ah odayaasha dhaqanka deegaanada maamulka Galmudug ay isku dayayaan inay gabi ahaanba ay qaboojiyaan dagaal beeleedyada ku soo noqday qaybo kamid ah Galmudug.